si looga jawaabo cabashada ay qabaan dadka u soo dalxiis tagay xeebta Jazeera ayuu gudoomiyaha deegaankaasi Cusmaan Maxamed Nuur ku tagay xeebta dalxiiskii damaashaadka Jazeera waxaana uu midmid u wareystay dhalinyarada kala duwan ee ka kala timid gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir si uu wax uga qabto cabashadooda. afayeenka deegaanka Jazeera ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Cadow Siigaale ayaa sheegay in wax dhibaato aysan ka jirin deegaanka. uu sheegayaa dawladda sharafta leh iyo maneel xildhibaanyada iyo maneel oqaasha iyo culimo udiinka inaan ka baxnay beentina lan ku abuurayay oo dadka maneel ilaahay raaho oo danaha qaasa kale deegaankan oo beledka geliyay inay nabadgelyo tahay awalna maneel ilaahay raaho nabadgelyada deegaanka asugu waa nabadgelyo waa ahay laakiin dadan deegaanka aan deganayna nabadgelyo darrada u keeni jiray haddase dawlow baxshay waxaan ugu mahad celihaynaa gudoomiyaha degmada iyo maneel ilaahay raaho taliyaha ciidamada qalabka sida iyo maneel ilaahay raaho intii waxaa soo dhanba soo agaasintay. gudoomiyaha deegaanka Jazeera Cusmaan Maxamed Nuur oo tagay xeebta lana kulmay dalxiisayaasha ayaa sheegay in aan dadka u dhalan deegaanka ay baahinayaan dhibaatooyin ay ka sheegayaan xeebtii waliba deegaanka. ulajeedkaygan wuxuu ahaa maanta oo aan maaragtay xeebta u imid maalin walba habeen walba waa taagannahay laakiin hadda maanta waxaan si gaar ah ugu imid waxay tahay inaan ka hadlo waxyaabo yar yar oo maaragtay soo yeeray oo aan dad dana gaar ah leh. waa meel hadda waddanka oo dhanba la dhihi kara 100% amnigiisu waa sugan yahay ma jirto laakiin 80% aan leeyahay amniga waa uu sugan yahay. hadda maantadan waxaa inoo yimid xildhibaano oo maaragtay ka tirsan muxuu ahaa Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir xildhibaanada federaalka qaar ka mid ah noo yimid sida aad aragteen wayna joogaan amnigoodan waa sugan yahay wax mushkiladii wax dhibaato oo ka jira ma jiraan halkan. marka waxaan ku casuumaynaa dhammaan madaxda Soomaaliya in ay noo yimaadaan si ay u ogaadaan waxa dhabta ah ee jira ay nooga ogaadaan annaga ee ay u arkaan. mas'uuliyiinta maamulka deegaanka Jazeera oo horkacaya gudoomiye Cusmaan Maxamed Nuur ayaa xarunta ku meel gaarka maamulka kulan soo dhaweyn ah ugu sameeyay xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba Hirshabeelle siyaasiyiin iyo waliba ururka horumarinta deegaanka Deedo oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan kuwaas oo deegaanka u yimid si ay u indheeyaan amniga guud ee deegaanka. gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka Deedo Maxamed Abuukar Cali ayaa maamulka ugu mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay dhalinyarada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka tirsan ururka Deedo. waliba martangana waana martigeliyay maamulka Jazeera meelan waliba hanay dhawaay dad oo mas'uuliyiin qiiwasha shaldoon mayba meelan kala kulannay xildhibaana iyo marti sharaf qiimo badan leh oo aan soo ku jeedaan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaano federaalka iyo dad badan oo markaas ay mas'uuliyiin qiiwasha shaldoon ku dareeran Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii meelan waliba ninka soo bixiyay soo dhaweyn qiimo badan leh. deegaanka Jazeera waa waliba deegaan oo amni shay anfayla oo gudoomiyaha degmada oo ciidanku koorgaliso iyo ciidamadiis aan ku mahadnaqo runtii deegaanka Jazeera waliba ay korne inkastoo ay tamadaniin ku horeeytay oo deegaankan aan shakhsiyan aan kooyo waliba oo hay tamay mar hor aan kooyo lahayd man kooyo waaytay oo aan ka dalxiis waaytan runtii waa dalxiiskii afraad ee kormis qeybtii afraad oo inta ka kooyana gudoomiyaha runtii ciidan ku mahadnaqana soo suurada lahayn dhawaan iyo laamaha amniga. gabagabadii gudoomiye Cusmaan Maxamed Nuur oo xeebta kula kulmay dhalinyaradaas soo dhaweyn diirana loogu sameeyay halkaas ayaa ka hadlay asagoona dhalinyarada ka socotay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu mahadceliyay sida wanaagsan ay u yimaadeen xeebta Jazeera. waxaa farxad weyn inoo ah maanta oo aad u qiimo badan in dhalinyarada Koonfur Galbeed ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed ee Deedo ay noogu yimaadaan dalxiis ayna arkaan hanaanka iyo muxuu ahaa dalxiiska magaalada ugu ku qurxoon ee Jazeera inay nagala qayb qaataan oo maanta waana rajaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay in badan oo kale ay inoo yimaadaan
waxaana aan rajaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan ayaga iyo dhalinyarada jasiirada aan isku xiri doonno insha Allah oo mar aan u sii samayn doono iyagoo wada jira casuumaad oo kale oo tan ka weyn insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo deegaanka jasiira waa meel dalxiiska ku wacan anuu ka faa'iideysanayo fursadayda waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka hadlo awalan dhulka jasiira dhibabka ugu badan ee taagan waa xagga dhulka waxaan sheegaa dhul waxa sideedaba iskala dawlad ma jiro shacab dhul bixin kara ma jiro dawlad ayaa bixin karta dawlad ayaa iskala dhulka waxaan kaloo baaq u diraa dadka eelayaasha ka surta dhulka waxaa loo baahan yahay in la deegaameeyo waxaan maanta laga bilaabo u qabanaa dadka eelaha ka surtay haddii ay dhisan waayaan 6 bilood gudahooda in dawladda la wareegi doonto idin ma raacdaynayna idinkaas raacdaynina Cabdifataax Muumin 5 TV deegaanka Jasiira gobolka Shabeellada Hoose